السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أخيرت رجع أكاديمي يعدوا له فوري سoo gaadhi doona waan wada salaamayaa. Waxaan noo socon doona taxaniin aan bacsharaynta ku saabsanay Cubeshan casharkiisa saddexaad oo noqon doona waa maxay candlesticks. Innagoo ka fargaran doona meesha ka yimaadeen iyo waxay u taagan yihiinba iyo astaamaha lagu garto candlestickska. boqolkiiba 90 ka ganacsiga suuqadana Cubeshan waxa asaasi u ah waa candlesticks. waana gunta ay wax walba ka soo bilaabmaan qiimuhu markuu dhismayo ayuu sameeyaa candlesticks. waxaadna ka garan kartaa ama ka ogaan kartaa qaabka uu suuqu u socday inuu dhaqaaq wanaagsan leeyahay iyo inuu correction ku jiro. markaan leenahay boqolkiiba 90 yaabay asaasi anbaba laga maarmaan yihiin suuqan. waxay intaas oo dhan muhiimad inta laga leeyahay waxa weeyaan candle walbaaba wuxuu u taagan yahay anbaba waxa ku jirta xog ba ku jirtana wuxuu ku siinayaa xog buu suuqa kaasinaya siduu u soo socday iyo astaamo suuq soo lahaaba iyo kaasinaya xog. marka xog la'aan haddii xogtaas jiri lahayn dee suuqan oo lagama ganacsadeen mad xogta daradeed ba wax lagu kala fahmayaaba. marka muhiimadda boqolkiiba 90 ka waxa keentay waa xogta ku dhex jirta candlada ku soo sheegayaan. sidoo kale waxaan nari suuqan wuxuu candles waxay ku tusinayaan inuu suuqu dhaqaaq lahaa dhaqaaq wanaagsan lahaa iyo inuu correction ku jirana. isla iyaga xogtan marka aad soo aragtid inuu xogta ku jirta candlada inuu hoos suuqan oo down trade ha iyo inuu up trade ha iyaga ku siinaya waayo xogtiiba ku dhex jirta. marka halkaas ka kala ogaanaysa inuu suuqani down trade ha iyo inuu up trade ha iyo inuu correction ku jiraba isla iyagu ma ku siinayana. waxa jira siyaabo iyo qaabab ay u sameysmaan iyo qaabab ay u xirmaan una furmaan waxayna isla baran doonaa candle salka ah iyo kan baygaana. marka candle walba wuxuu leeyahay qaab uu furmo iyo qaab uu xirmo leeyahay oo waxay sameeyaan taybab kala duwan bay sameeyaan oo qaabab iyo noocyo kala duwan bay leeyihiin oo qaabab kamida markuu ku sameeyo wuxuu ku siinayaa confirmation ah sell iyo wuxuu ku siinayaa confirmation ah buy. isla iyaga ku siinaya dad si wanaagsan baratid suuqan jadid raacleyn oo markaad candle ka aragtid uu ku sameeyo candle jaha gooniyo ku siyaa markuu ku sameysmo jahada ku siinayo in baad u raacaysaa marka oo confirmation buu ku siinayaa. haddaba yaa sameeyay candlesticks ka xilimaas la sameeyna su'aashaas in badan la isweydiinaya ma filaya. waxa sameeyay in la oran jiray Manhuza Homa wuxuuna sameeyay qarnigii 18aad wuxuuna ahaa Manhuza Homa nin ganacsada ah kaasoo ka ganacsan jiray bariiska dhalasho ahaan wuxuu ahaa nin Jabaaniisana. marka waxaan ka ogaanaa xaggan qoraalkan xog ah ninka sameeyay in magaciisa la oran jiray Manhuza Homa uuna sameeyay qarnigii 18aad uuna ahaa ganacsada ka ganacsada bariiska uuna ahaa nin Jabaaniisana. marka halka waxaan nooga cad qarnigii 18aad waa muddo aad u horeysay marka inuu candlestickadu inay ka horeeyeenba teknolojiyada iyo xadaarada inay ka horeeyeen xilligii la sameeyay oo bariga ma jirin computer iyo waxaanba ma jirinba. marka waxa halka nooga cadaanaysa in muddo dheer la soo isticmaalayna oo haddana teknolojiyadu lagu dabaqay. marka waxa la yiraahdaa Manhuza Homa waa aabaha price action-ka waxa lagu bixiyaa aabaha price action-ka ninka waxaan sheegnay inuu ganacsadaha bariiska ka ganacsan jiray. marka sababtu uu sameeyay candlestickada waxa weeyaan ganacsadayaashii Jabaaniiska ahaa ayaa u baahday xogii hore sidii sanad markuu dalabku soo oo kala sanadadii hore lacag ay ku iibin jireen maalmihii hore maalmaha tagi lacagii sidii wax u iibin jireen wixii dhan u baahday. marka wuxuu sameeyay luuqad lagu garto ama charts lagu garto sameeyay kaasoo bixiyay candlestickna. marka saasa lagu bixiyaa babarak action-ka waayo maadaama uu qiimihii uu sameeyay de xog uu sameeyay iyo meel loo raaco uu sameeyay saasa loo yiraahdaa babarak action. iyo waxa kala arki doontiin dibigaas arki doontiin iyo dubaasad badan arki doontiin inta suuq ku jirteen. haddaba labadan maxay kala taagin labada xayawaan ba muhiimad u tahay waxay u kala taagin dibigan wuxuu taagay buyerska oo waxay astaanta u soo qaateen waxa weyn dibigu wuxuu dagaaltamaa kor buu dagaaltamaa buyerskuna kor bay suuqan kor bay u socdaan. sellersku waxay calaamadan dubaha u soo qaateen waxa weeyaan
dubuhu ama biirku hoos buu u dagaaltamaa. markaa sidaa iyagana hoos bay wax usoo galaan salarisku, sidaasay calaamadan soo qaateen. haddaba haddaynu kala sharaxno waxaad arki doontiin markaad suuqa tagtiin labadan baad kala arki doontiin. labadan waxaa candle baa dhahda, kan bearish baa dhahda, kana bullish baa dhahda, kana bearish baa dhahda. markaa kan waa ka bayga ah oo akhtarba mar walba noo yahay, innaka oo kalarka bedeli karna mar walba. laakiin haddii kalarka la bedelo maxaad ku garanaysaa? candleka bayga ay hoos buu kasoo furmaa. open halka hoose open ugu qoranta waa halku ka furmayo, halka uu ku xidhmayana waa halka sare. halka hoose ka furmaa baa nidhi, halka sarena uu ka xidhmaa. muxuu leeyahay baa nidhi ay ka sameeyeen labadan candle lower iyo high bay ka sameeyeen low. marka high waxa weeyaan xalkii ugu sareyso price-ku gaadhay iyo xalkii ugu hooseyso price-ku gaadhay weeyaan. labadan meelood ee yare labadan fiiqdimo ee dhaadheerna waxaa loo yaqaanaa week ama shadow baa loo yaqaanaa, oo waa intii rejectionka lagu sameeyey weeyaan. halkaasuu markaa suuqa ka furmay, intaasuu socday, halkaas hore ku xidhmay. markaa kaa waxaan u naqaanaa hadduu xagga hoose ka furmo buy baan u garanaa mar walba. intan dhexe waa caloosha baa dhahdaa ama borgi baa dhahdaa, oo waa inta ay ku jiraan buyersku. intaasoo qofaa ku jiri karaya halkan oo suuqa buy markay usoo galaan. dadku intaasay buuxin doonaan, intaa ballaaramay buuxin doonaan. hadday dadku yar yihiinna halkaas intaasoo kale buuxineen. hadday dadku kolba qiimaha wuxuu ku xidhantay dadka ku jiro ku xidhantay ka dhaq siduu strong u noqdo iyo siduu u noqdo weak. kan salka ah maxaanu nidhi kaa hore halka hoosu ka furmanaya, salku halka saruu ka furmanaya. inuu kalarka casaankaas ka bedelaa laga yaabaa. markaad maxaad eeganaysaa? hadduu candleku xagga sare ka furmo uu halka hoose ku xidhmo aad wuxuu ku yiisada. oo marka platformka iyo optionka aanu tagno waxaan bedeli karanaa labadan kalar waan bedeli karanaa, casaan iyo akhtarka waan kala bedelin karanaa oo noocan doonan ka dhigin karanaa. markaad maxaad eeganaysaa? hadduu xagga sare ka furmo candleku uu halka hoose ku xidhmo waa sal weeyaan. intan dhexana caloolo baa la dhahdaa ama body baa la dhahdaa, waa intay sellers ku jiraan amba yaantan weeyaan. intan dhexda calooshaabay dhex jiraan dadka sellers. halkaas sare maxaan waa high ama low weeyaan baan nidhi. waxa weeyaan xalkii ugu sareyso price-ku gaadhay iyo xalkii ugu hooseyso price-ku gaadhay. intaa maxaan nidhi madow ama fiiqdinta madow waxaan nidhi waa week baa dhahdaa ama shadow baa dhahdaa. waa intii rejectionka lagu sameeyey weeyaan suuqa. halkaasuu ka bilaabmay, halkaasuu ka furmay, hoos halka hoosena uu ku xidhmay. isagoo waxaan tegi doonaa haddaba platformkeenii haddaanu ka eegno labadii candle aynu ku sharaxaynay. iminka mid waaba kanba sadarkiisiinba candlekaas intaa dhexe waa calooshiisi, waa intaan boriga lahayn. halkan hoosena waa inta week amba shadowgi intii revisionka lagu sameeyey. xaggaas sarna waa highesti meeshii ugu sareyso price-ku gaadhay, meeshii ugu hooseyso price-ku gaadhay. halkaas sare uu kasoo furmay sadarkiisiinba, halka hoosena uu ka xidhmay. marka haddii uu kalarka noo ahaan lahaa buluug amba noo ahaan lahaaba huruud oo kale, maxaanu eegan lahayn? halkaas hore kasoo furmay, halka hoosena uu ka xidhmay. marka maxaa noo noqon lahaa? sal buu noo noqon lahaa. marka aduu mar walba waxaad eeganaysaa kalarka eegan maysid, casaan iyo akhtar mar walba eegan maysid. waxaad eeganaysaa meeshuu ka furmay, meeshuu ka xidhmayna. marka haddana mid kala eegnana waa kan mid baa isaguna ahay. saad wada arkaysiin wuxuu ka furmay halka hoosuu ka furmay saad arkaysiinba, halkaas sarna uu ka xidhmay oo ku xidhmay. marka muxuu noo noqonayaa? buy buu noo noqonayaa. hadduu kalarku bedelaan lahaa oo blue iyo cream kaan lahaa amba yellow oo kale, inaku waxaan eeganaa walba xaguu ka xidhmay iyo xaguu ku furmayna. hadduu sare ka furmay uu hoos ku xidhmay wuxuu noo yahay sal buu noo yahay. hadduu hoos ka furmay uu xagga sare ku xidhmay wuxuu noo yahay buy buu noo yahay mar walba. marka labadaas aan ku kala garanaynaa. haddaba intaasaan maanta kusoo gabagabin doonaa casharkeennii candlestickska. casharka xiganta ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.